Section 4.2 waxaan ku fiirin doonaa the interview process. Halkan waxaan ku fiirin doonaa workflow ama pipeline waxa loo yaqaano. Shaqada markii qofka interviewga la yeelanayo waxaa la marsiyaa stages la soo marsiyaa. 3 stage ayaa ugu waaweyn oo loo yaqaano screening stage. Screening dadka in screening la marsiyo, la jeegareeyo, la fiiriyo. Kadibna selection lagu sameeyo. Midka ugu macquulsan laga soo dhex baxsado. Ugu dambeynna midka ugu fiican la marsiyo final stage. Shaqaaleysiintiisii iyo contractiisii iyo in shaqada loo fududeeyo markaa. Ayagoo faahfaahsan aan isla fiirino one by one. Waxaan ku bilaabi doonaa the screening stage. Sida sawirka ka muuqato, screening like qofkani waa iska fiirinaysaa qofkani qofka saxda ma yahay. Tusaale ahaan, shaqo ayaa waxaa soo xareysatay 30 qof. Waxaan loo baahan yahay kaliya hal qof. 30 kaas qof qaarkood waxaa soo xareysanayo takhasuska ay rabtay kuwa aan ahayn iska soo xareysanayo. Sababtoo wax u diidaya ma lahan. Okay? Marka stage-ka ugu horeeya oo lagu kala saarayo marka waxay tahay 30 qof ee soo xareysatay ayaa waxaa laga yaabaa 10 ka mid ah inaysan ahaynba dadka takhasuska u lahayo. Marka stage-ka marka waa stage-ka lagu kala saarayo CV-yadooda review lagu sameynayo. Tusaalahan waxaa kale u baahneed 10 qof ka mid ah takhasus ma u lahaanba waa hareen 20 ku soo hartay. Experience waxaa raadinaysa oo 2 years raadinaysay. Dad waxaa ku jira meesha oo fresh students ku jira oo year 1 ah ama year 2 ah wax experience u qorana ma lahan. So kuwaas oo kale ayagana way harayaan. Adiga experience 2 sano rabto ugu yaraan ayagana waa ka sii harayaan. So stage 1 screening stage waxaa ku haray 30 qof 15 ka mid ah hareen. 10 waxaanane shahaadooyinkooda wax ka dhinaayeen 5 ka mid ah experience ay ku hareen. So waxa ku soo haraya marka 15 qof ku soo harayso. Okay? So maxay ku hareen CV-yadooda qaarkood short phone call aan sameynay. Telefoon ka wacaysaa waa weydiinaysaa wax yar ka weydiinaysaa. So adiga ma leedahay ninkaas software hebel lagu shaqeyn rabaa graphic design maxaa ka taqaanaa waxaas markay timaado see loo sameeyaa then waxaa laga yaabaa inaad dadka qaar saas ku sii reebtaa dhici karta markaa. So check minimum qualifications and filter candidates. So filterna la sameynayaa dadkii ayaa waxaa la sameynayaa waa la kala saarayaa markaas. So stage 1 shaqo aad u fara badan ayaa meesha lagu qabtaa markaa. 30 qof ayaa waxaa ka soo saari kartaa 15 qof oo looga macquula markaas. Selection stage ajirta markaa. Selection stage maxay tahay 15 qof ayaa waxaa laga yaabaa inaan u ballamiso interview ayaa u ballaminaysaa nooca uu raba interview noqdo waa baran doonaa insha Allah isla maanta. Maybe panel oo noqon doonaa, maybe technical oo noqon doonaa, maybe situational etc. So 15 kooda u yeer wixii aad ka filinaysay ma ka heli kartaa wax u eg expectation kaaga. Marka maalinkaasna 15 kooda mid walba waxaa siinaysaa 20 minutes ama 30 minutes iska fiiri kan shaqo u dir mararka qaar 15 kooda ballami qol ku xaray computer wada dhiib shaqo wada dir then ka qaad saas amal marka. Ugu dambeyn waxaa soo bixi doona marka assess skills, experience, cultural fit. Qofka ugu habboon ayaa soo baxaya. Okay? Ugu dambeyn marka qofkii ugu habboon markuu soo baxo ayaa waxaa la marsiin doonaa wax loo yaqaano final stage. Waxaa la marsiin doonaa final stage. Final stage marka waxay tahay qofkani qofka ugu fiican noqday marsiin processka company-ga la marsiin jiray marka. Sida u dir reference check samee. Company-da oo la soo shaqeeyay waa salaan u sheeg inaa company X tahay ninkaas inuu yimid maanta macquul ma yahay dheh weydiin marka. Uga sheekay salary-ga meesha la qaadanayo iyo benefits meesha laga heli doono. Ugu dambeyn haddii uu ku qanco job offer soo dhaw marka shaqadan waa ku siidhe fadlan isoo dirga marka aqbalaadaada contractigan aan kala saxeexana markaas. So this marka waxaa loo yaqaanaa final stage. Final stage marka waxaa soo gaari kara kaliya qofkii ka soo gudbo screening stage, selection stage qofkii ka soo gudbo almost marka meeshan uu yimaado marka. Okay? Marka ina ogaano waa marka human resource-ga ama xafiiska shaqada shaqaalaha mar walba oo boos haysiyo waa mar walba oo shaqooyinkan faraha badan soo maro. Mid walbana waxay qaadan kartaa waqti qaadan kartaa. Screening kale waxaa laga yaabaa dadka deadline-ka markuu shaqada bisha 5 deadline markuu xirmo 10 days waxaa laga yaabaa in laga shaqeeyo hawshan bis 10 days ama 15 days marmarka qaar. Selection stage-ka
dadkaas in la ballamiyo in imtixaankooda la saxo waqti dheer ayadan qaadataa maybe another 10 or 20 days so bil ayaa waxa laga yaabaa in maalinka shaqada deadline ku xirmay ilaa qof laga qaato inay bil u dhaxaysa laga yaabaa markaas